هلا والسلام عليكم أصحاب جنلكي كحرنا أصحابتي سيتهين سوما في عنيدين سيكو بردين سيكو هرقشين سيكو سيحتين والسلام يا أصحاب السلام قالي حوديني سومرينيا إعلانكي قاربا إنا إني تتصوا إذن فاني أسوما أركيسي مانتا إيقو قاتا أصحابتا وحاربا إنا إذن دوهو سولا اسكو سولا وشوا عنها هذا جلالكو عصبتا بليز سبسكرايب هوس نوده لايك and share أصحابتا ما أنت وحاربا أرين حساسي إنا كشيكيو وحاربا إنا دول استاغو شيكادا محلها هاي بها جعلك ayaa rabaa inaan maanta dul istaago real quick video aan marweyna isku sii dheeree 10 daqiiqa rabaa inaan ka dhigo ma fahantay maxallaha ay aabaha jecelka videoyadiisa waa arkay maxaa arkay video uu ka hadlayo maxallaha in uu qarash isgaliyay maxallaha as a reminder I'm gonna put that video on videogaas fiirsanina maxallaha hadallo badan aan hayaa maxallaha mid asaga aan ka hadlayo midna maxallaha dhalinyarada Soomaali wacni ugu soo jeedinayo maxallaha ay anfaci doonto midna asaga ay anfaci doonto aan ka hadlayaa marka let's just watch this video madaxa waa samaystay ilka waa samaystay oo sidii hore waa ka duwan yihiin wajiga قليل ما هورتا هاي شيء إربط لبسيسية على الدولار يسد حبة يكون دولار ويسد كل دولار وجهك سد حرب على الدولار بيكون دولار حبة هلك حبة يكون دولار سد كل دولار وجهك مركب وجهك سد وجهك محسمية مركب وجهك محسمية حددتي يمينتي ماشي أقوم جدا مصور كي غوري مصور كان دا ساقلك تاسي دا ميديا لو صدق انا way kala fiican yihiin maxamed jaamac iyo karti shaqo kuma leeyahay naga iyo codeey iyo waa qurxunta iga badan nin waxa farax lagu baasta aba jacaylka aan dhamaysto ma ha ku dheeraane aan dhamaysto wajigan qarsha galay face wash ma galan kartaan ha murminina ha qaylinina wiilash Soomaalidu dacayadeena xudaa qarsha igalay wajigan qarash baa igalay idinka face wash hataa ma gadan kartaan aside from dacayada maxallaha ay aabaha jecelka waa sax maxallaha wuu isqarsigeliyo qofka bini aadankana dhowr jeer waxa arkaa asagoo dhahay aniga waxaan ka soo shaqeeyay Europe 30 sano soo shaqeeyay waa soo shaqeystay qof waxaan ahay hadda maxallaha noloshiisa raba inuu maxallaha ku qaato farxad iyo hasaaweyn iyo maxallaha gacayl aabaha jecelka wuxuu ula baxay sas waa as you guys can see maxallaha aabaha jecelka hataa YouTube lacag ka raadiyo ma lahan TikTok ma lahan social media dhan ma lahan dhalinyaradaas iska dhex jira farxad ifan la qaataa qof ma ahan sideenoo kale maanta xarbinayo ordayo lacag raadis ama ma ahan qof hore u soo shaqeysta waaye maxallaha aniga qurbo joog ahaan lama yaabaayay because dad badan oo asaga la eg oo ajnabi ama indhayar oo muslim ha ahaato ama Soomaali ha ahaato halkan waa normal qofka maxallaha markuu lacag haysto wuxuu rabo nafsadiisa ku sameyn karaa wuxuu rabo gadan karaa maxallaha as long as diintiisa maxallaha xaraam ku ahayn ka soo jeedin maxallaha hair transplant uu sameystado u jeedaa maxallaha tima soo celinta ayadan xaraam Soomaali badan hada sameysato waaba new thing hada dhalinyarada Soomaalida wiilasha iyo dadka waaweyn ba hada ay sameystaan maxallaha the other thing uu sameeyana waxa wax la dhaho Botox fillers uu sameystay maxallaha videoyada marka arka hada maanta asagoo xanuunsan waa arkay picturekiisa isbitaal loo sii wado marka waxa rabay inaan ka sheekeeyo dhibaatooyinka ay Botox fillers ay leeyihiin. Botox treatments have been the #1 cosmetic non-surgical treatment for decades. It is incredibly safe and incredibly effective in trying to reduce lines and wrinkles in the face and keep people looking smooth and fresh. The problem is sometimes you might not be getting actual Botox if you're not careful. A couple days ago there were 6 cases reported in Tennessee and Illinois of patients getting sick, having symptoms like difficulty swallowing, blurred vision, or droopy eyelids, or even difficulty breathing. 4 of those cases ended up going to the hospital to be treated. Now this can be very serious. It can even lead to
to death in higher concentrations of botulinum toxin. They're giving people botulism. And this all seems to have happened in these cases in non-medical settings, going to a spa or worse yet, going to someone's home to be treated. And wuxuu yiri botox fillerska maxaa jira ayagoo nooc kale ah oo nooc qaldan ah dadka maxallaha loogu sameeyo isbaaska meelaha oo maxal saaluumada kale ama qof gurigiisa loogu tago oo ku sameeyo oo meel medical ahayn oo doctor oo ku takhasusay ahayn hadaa u tagtid oo ku sameeyo botox filler dhibaatooyin badan laga qaado dhibaatooyinka ugu laga qaado waxaa waayay maxallaha droopy eyes indhaha dadka badan soo daciif ka noqdo maxallaha difficult breathing ma neefsan kartid maxallaha qunfaca iyo maxallaha waxyaalo badan hadda aniga maxallaha astaama aan ku arkay maxallaha aabaha jaceelka uu ka sheekeynaya difficult breathing coughing iyo waxaasayto waxaa keeno the toxin of the botox filling marka maxallaha I hope he gets treated but at the same time I hope dadka maxallaha dhaqaatiirta xataa wadanka joogo in buwaag ay dalbadaan ay aqristaan iyo pure form of botox dadka ay u keenaan sifa la aasaka wuxuu dhahay $1,000 ee gashay injection waa lacag fiican sifa lacag fiican dadkana u bixiyaan wax pure ahna ee u siyaana ka codsanaya dakhtariinta oo sameeyo cosmetic surgery wadanka joogo iyo botox filler uu sameeyo haddii botox filler oo qalad lagu sameeyo it can cause so much damage nafsadaadana halis bay gelin kartaa ma fahantay marka saasaa ka codsanaya waan u duceynayaa aabaha jaceelka caafimaad ilaahay inuu siiyo as qof hadda coordinators ahaan usoo shaqeeyay maxallahayay dhowr sano nurse ahaa ama haddii scenario kaleeto qof hadduu ku dhaco maxallahayay he can get like wuxuu heli karaa daawooyin treat gareyso difficult breathingkiisa iyo maxallahay caawinayso xabadkii qunfaca ka caawinayso and injectorkana let it run its course aan dhihi lahaa cabaar sug inuu caafimaada laga yaabaa bilooyin ama sanad ka bacdi qunfacay waxaas u karaysto hadduu fahmi waayo istimsak inuu Europe ka imaado he can go back to the country of his origin Europe uu deganaa he can get a professional treatment or also xataas oo Soomaaliya waxaa laga heli karaa dakhtariin oo maxallahayay oo maxallahay aad ugu takhasusay oo aad wax u soo bartay oo caawini karo botoxka hadduu dhibaato isaga u keeno maxallahayay as far as I can see hadda uu treatmentiga soo qaatay marka maxallahayay side effectigiisuna maxallahayay uu dareemaya so waxaan waxay qaadanaya waqti maxallaha to clear his system marka I hope he takes care of himself maxallahayay aabaha jaceelka video arka maxallaha uu arkin u gudbiya waxaan dhihi lahaa sigaarka iyo waxyaalaha qaaca inuu iska yareeyo maxallahayay maxallaha cunto healthina uu cuno iyo maxallahayay waxyaalaha infection causing bacteria waxaasan inuu iska ilaaliyo cuntooyinka wadada lagu cunayo waxaasan inuu iska ilaaliyo maxallaha khayr baa u rajeynaya iyo caafimaad tamaama ilaa caafimaad siiyo maxallaha qof waxaa waaye nafsadiisa jecel oo jecel qof nafsadiisa jecel waxaa waaye nolol wanaagsan inuu helo jecel waaye marka qof walaalka wax kasta jecesha loo jeclaadaa qof kasta adduunkuna nolol wanaagsan uu jecel yahay honestly we all like to live the best life and inta heysatana Allah siiyo inta heysatana Allah u siyaadiyo anagana ilaahay wax khayr qabo oo maxalla reereeno lacag nafsadeena aan gelino fara badan Allah na siiyo insha Allah kulligeena waa idin salaamaya asxaabta hadaa ka heshay sheekooyinkayga isa wax u soo bandhigo waxaa ka codsanayaa fadlan inaad subscribe hoos ii dhahdid like and share waa idin salaamaya khayr ayaan rajeynaya assalaamu calaykum inta video kala kulmayno ciao